gabdhaha waxaan leeyahay cadow baa idin soo baxay ilaahay aan ka baqahayn korka bani aadam buu ka yahay laakiin dabeecad dugaag buu leeyahay waa wiilka ku dhiiranaya inuu inanimadaada ku ciyaaro marka uu yeelatidna ka dhaqaaqo ku yiraahdo kuma aqaan wiilka ku dhiiranaya inuu xashiish ku cabsiyo ku baro ku dhiiranaya inuu cirbado darooga kugu duro ku dhiiranaya saaxiibo kale inuu kugu siixiro oo xunxun ka ilaaliya moobiladiina inaad kala xiriirtaan ka ilaaliya inaad waxaas xun daawataan ilaahay ka baqa gabdhow oo xijaabkiina qaata oo adkaarta akhrista oo salaadaha ilaahay tukada oo guriyihiina ku ekaada ilaahay wuxuu ku tilmaamay gabdhaha mu'minaadka ah oo ahlu khayrka ah waqarna fi buyutikun guriyahooda ku nagaada wala tabarrajna tabarruj aljaahiliyati alula sida u dhaqminina ha u soo banbixinina sida gabdhihii jaahiliyaadku ay ahaayeen intay soo labisato wax walba soo marsatay yaacayaan dariiqa markaasay waxa weeyaan fasaadka halka ka yimaada cibrab xumadiisa idinkii salka idin dhigaysa adoo xishoonahayo ilaahay ka baqahaya guur xalaal ah ilaahay waa ku sahlaya subhanahu wa ta'ala yaan lagu sirin yaan lagu khiyaanin talada iyo wixii kugu soo kordha hooyada iyo aabaha oo ku soo koriyay la wadaag wiil meeshaas iska aragteen oo aan ku soo karin oo aan xuquuq kugu lahayn yuuna been ku sheegin nin ajnabiga gacantiina ha ku salaaminina nin ajnabiga dariiqa ha la fariisanina nin ajnabiga sawir ha la gelinina wuxuu rabaa inuu gacanta hal mar idin ku dhigo gabdhow baraaruga cadowba idin soo baxay gaaladii waa idin fidnaynaysaa dad ay ku adeeganaysaa ayayna leedahay xishoodkiina iyo akhlaaqdiina soo ceshada ilaahayna ha idin xifdiyo إلهي هايدن حفظيو إلهي قبلها ينو هنونيو إلهي هينو هنونيو صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.